Assalaamu calaykum. Waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda Camuud akhrisan jiray waagii dowladda. Maalmaha ka mid ah anoo gaari sugaya ayaa gabar agteeda orod ku martay. Waxaan soo laabatay gabartii oo iyada xoogaadii iska yara xishoonaysa. Anadii markaas waxaan tan gaba gelin meesha gaari ayaa ku sugayay. Markuu ayaa warqadeeda iga fakatay oo ana ka soo qabsaday. Warqadeeda ayay saad u fiirinaysay oo way ku dhalacateynaysa wayna ku qoslaysay. Anna warqada maxaa ka qaldan ayaan dhahay waa fiiriyay. Inaan la qosla ayaa rabay waana iga tagtay oo gaariga ayaa gashay. Qofta saad ayay u qurux badneed oo warqada saxiix adag ayay igu reebtay. Anna saxiix ayaan iska fiirsanayay ilaa macallinkii warqadaha iga keenay imtixaanka. Jaamacaddan waxaa marayay imtixaankii igu dambeeyay. Warqadii ayaa biibtay waana soo qabsaday waxaana arkay wax aan la yaabay. Waa gabartii meesha gaariga aad wada taagnayn oo saxiixa adagna ii reebtay. Inaa uga ayaa isku dayayay oo maamulaha ayaa igu dhahay maxaa ka qaldan caadada dhashay kalaaska ka fadhiiso. Go'aan ayaan gaaray oo warqadaha imtixaanka intaan fariin aan ku qoro ayaan inta ka dhigo ayaan qofta u dirayay. Tii hore markay iga qasaartay midii labaad ayaan soo qabtay waana laalaabay mig ama ayadan u diray way iga qasaartay. Maamulaha ayaa arkay waryaacado qashma raadinaysa ayuu igu dhahay. Anna awood wax oo shaqeeyo tiimo lahayn oo qofta kaliya iga gashay. Fariimaha ayaa iska tirtiray ilaa ay warqadii dhan iga dhamaadeen. Ardayda dhan way yaabanaayeen oo waxay islaayeen ninka maxaa ku dhacay imtixaanka ku adkaaday. Warqadii shumiska oo igu dambeysay ayaan laalaabay oo waxaan rabay inaan si kaliya laab ah u diro laakiin hawada ayaa iga qaatay. Qoftiina qolkii way ka dhamaatay. Anna waxaas la orod jabso hoos u hortag ortiro macallinka ayaa soo galay mise horteyda ayuu istaagayba. Macallinkan wuxuu igu dhahay caado waxaa ka qaldantay waa final exam meena dhacdeed ayaa rabtaa. Anna warkiisa dhan iguma soconin warqadii hal mar ayaan kala tuuray waana fakaday. Qoftii ayaa rabay inaan hoos u hortago. Sayd ayaan u ordayay oo gaariyaasha ayaa isigayay nafteedana ma ogeen. Hal mar ayaan waxaa arkay warqadii shumiska oo meesha taalo waana fiiriyay. Nerf ayaan ku noqday waa qabsaday waana tuuray. Sayd ayaa u tuuray waana iskaga tagay. Warqadiina waxay tuusho waxay markii dambe ku soo dhacday meeshii oo boxka warqadaha aan ku dhameeyay oo miigyaal fara badan ay yaaleen misidyaal fara badan ay ku qornaayeen. Warqadiina meesha ayay ku soo dhacday. Warqadana warqad bilaawe ayay ahayd oo waxay madaxay ka gelaysay warqadihii kaleeto oo hawada ay kula ciyaaraysay ilaa warqadihii dhammaan ay wada kaceen oo madaxa ay ka gashay ayaga dhan ay warwareegtaan. Anaa niyad jabsan oo wadooyinka qoftii ka raadinayo ayay lugteeda ku soo dhagtay waana tuuray. 5 ayay noqdeen oo igu dhadhageen annaba iska fujinayay warma camal ay igu dhacayeen oo way bibiibinayeen sida balanbaalista camal gaariyaasha tabiiga dhaxbaxayeen. warqada balaayo ayaa ahayn oo aniga qofta ayaan isku keenkiin rabeen. Warqadii shumiska ayaa biibtay oo qofta agteeda ku dhacday oo waxay rabtay inay soo kaxeyso. Anna kuwii kaleeta ay soo kaxeynayay. Warqadaha waxay ahaayeen cajiib oo isla shaqeynayo. Qoftii tareen ku soo rideen anna tareenka ayay igu rideen. Laba tareen ayaan soo kala raacnay. Anna waxay baxsadeen isku dayay kaliya wada calaayeen. Ayaan xasleed maxaa warqada waxa ka qaldan oo sida agtaada ku yimaatay. Hal mar ayaa tareenka istaagay. Anna waa soo baxay ayadana way soo baxday. Waa qiso jacayl oo yaab badan waxaana isku imaanay qoftii kaliya iga gashay. Fadlan saxaabay subscribe.